wasiirka dib u dejinta Somaliland ayaa socdaal kormeer ku tagay xarunta guud ee hay'adda Al-Hayat Islamic Foundation ee magaalada Hargeysa oo mashaariic kala duwan ka fulisa gudaha dalka. Kormeerka wasiirka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ugu kuurgali lahaa waxqabadka hay'adda Al-Hayat oo inta badan ay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaxoontiga iyo barakacayaasha ku sugan Somaliland. wasiirka waxaa xarunta ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta hay'adda Islaamiga ah ee Al-Hayat iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Yamaniyiinta ku dhaqan gudaha Somaliland. waxaana wasiirku mid u galay xafiisyada xarunta guud ee hay'adda. kormeerka kadib kulan wasiirku la yeeshay mas'uuliyiinta hay'adda iyo xubno ka mid ah jaaliyadda Yamaniyiinta ku dhaqan dalka. waxaa hadal ka jeediyay gudoomiyaha hay'adda Al-Hayat oo wasiirka uga mahadnaqay socdaalkiisa isla markaana ka waramay waxqabadka hay'adda iyo higsigeeda mustaqbalka. hay'adda Al-Hayat Islamic Foundation waana hay'ad wadaniya ee waddankeena u shaqeysa sidii warbixinta wasiirka aan ku siinay sanadkii haddayna soo dhaafay waxaan ka fulinay jamhuuriyadda Somaliland ilaa mashaariic 500 ilaa 600 oo mashruuc gaaraya oo nooc walba leh qaybta biyaha ceelal fara badan oo waddankan ka fulinay ilaa 300 oo ceela masaajido fara badan oo waddankan ka dhisnay qaybta waxbarashada qaybta caafimaadka agoonta aanu hayno ardayda waxbarashada aan ka bixino dugsiyada hoose dhexe sare dadka macallimiinta gobolladeena wax ka dhiga aan gacanta ku hayno runtii waxa ka go'an hay'addan Al-Hayat inay dalkeena iyo dadkeena ay u shaqeyso. waxaa kale oo kulanka hadallo ka jeediyay xubno ka mid ah jaaliyadda Yamaniyiinta ku dhaqan gudaha dalka Somaliland. wasiirka dib u dejinta Somaliland mudane Cali Saciid Reegal oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in hay'adda Al-Hayat ay mashaariic waxtar weyn u leh ka fuliso gudaha dalka. hay'adda Al-Hayat iyo hay'adda Daarul Bir iyo dhammaan hay'adaha kale ee ka soo shaqeeya aan soo wada shaqeynay arrimihii bini'aadanimada ahaa ay ka mid tahay dadkii Yaman ka soo qaxay ay ka mid yihiin dadka barakacayaasha ee dalka gudihiisa joogaan ee ay ka mid yihiin dadka kale jinsiyadaha kale leh ee waddanka Somaliland gudihiisa ku soo qaxo sida wanaagsan ay gacanta uga geysteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda Al-Hayat Foundation iyo hay'adda Daarul Bir labada hay'adood dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo cid kasta oo gacan ka geysatay waana soo dhaweynayaa waana waxaan la ilaawi karin maantana dalkeena Somaliland waxa ka jira abaar aad u xun oo waliba haysata gobolada bariga iyadoo dadka Somaliland boqolkiiba 70 ay yihiin dad xoolo dhaqata oo miyiga ku nool maanta gobolada bariga siiba abaar xun baa ka jirta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Saaxil abaar xun oo aad u xooggan baa ka jirta xoolihii baa baxay geeli baa farfariistay arigii baa fariistay dadkii baa imika khatar ku jira biyo la'aan baa jirta raashin la'aan baa jira iyadana waxaan ku rajoonayaa wixii loo qaban karo dhammaanba hay'ado shacib xukuumad madaxweynuhuna waa tuu ku dhawaaqay in abaartaasi jirto cid walba ay gacan ka geysato taana waxa weeyaan hay'adda Al-Hayat iyo Daarul Bir iyo hay'adaha kale ee islaamiga ah dhammaantoodba waxaan ku boorinayaa in iyaguna wixii kala gudboon ay ka qaadaan oo ay ka howlgalaan. jaaliyadda Yamaniyiinta ku dhaqan dalka Somaliland ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay wasiirka dib u dejinta iyo gudoomiyaha hay'adda Al-Hayat iyo waliba jamciyadda Daarul Bir ee fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee xarunta isu tagga Imaaraadka Carabta. Nuuruddin Cali Joog, telefishinka qaranka Somaliland, Hargeysa.